wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo socdaal shaqo ku joogta magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxay maanta kormeer kala duwan ku soo martay xarunta kastamka magaalada Berbera iyadoo soo indhaysay sida ay u socdaan hawlaha shaqo ee kastamkaasi magaalada Berbera waxaana halkaasi warbixin kooban wasiiradda ka siiyay maamulaha kastamka magaalada Berbera Maxamed Cabdi Gurxan oo ka warbixiyay halka ay marayaan hawlaha shaqo ee kastamkaasi si wanaagsan uu noogu soo xirmay sanadkan labadan bilood si wanaagsan buu u bilaabmay labada biloodba mal awaalkii aad noo dejiseen waynu ka sareynaa xooluhuna dhoofka xooluhuna si fiican buu u socdaa labadii qayboodba importkii iyo exportkii sidoo kale waxaan shaqo culus ay ka socotaa oo inala fadhiya maamulihii cashuuraha bariga oo isaguna runtii warbixin kooban naga siin doona xafiiskii cashuuraha bariga iyo sidoo shaqada ugu wado soo raaca ilaha dakhliga ama ugu ballaaran sida xafiiska kastamka marka shaqadiisuna si fiican u socoto xafiiskii wuxuu ka kooban yahay laba xafiis oo yaryar laakiin aan dhisno labada controlnayna wala yar joogono yar lagu leeyahay xafiiskan halkan ee aan ku shaqeyno waynu si fiican shaqada isku barano shaqada la isku bartay marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay guusha ay sheegteen inaad ka sii badisaan dhiirigelin baan idinsiinaynaa waan idin haweenahay waan idin mahadnaqaynaa waxaad qabateen walaydin ogyahay wadanka idin runtii mana hawl yaro qof dakhli dadka doonaya oo dhibteedu way badan tahay marka adkaysto dulqaata oo eega wadankeena halku ka soo bilaabmay sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan waxay kormeer ku tagtay deegaanka Dalow oo kamid ah deegaanada gobolka Saaxil halkaasi oo ay sheegtay in laga hirgelin doono xarun ay dadku u dalxiis yimaadaan waxaana uu dhulkaasi Ilaahay ku abuuray buuro iyo biyo dabiici ah iyo khayraad kale oo aad u tiro badan ayaa ku kulmay goobtani Marwo Samsam Cabdi Aadan wasiiradda wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo ka hadashay goobtaasi ayaa ka warantay ahmiyadda uu dhulkani u leeyahay dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hadalladeedii kamid ahaa horta Ilaahay baa mahadle waa Ilaahay nimcadiisii baan dul taaganahay waxaanu joognaa meel iyadoo liqliqaan oo intana la yiraahdaa laakiinse waa Dalow nimcada iyo imka jiilaal baynu ku jirnaa biyuhuna saasay u socdaan halkan waxaan ugu talagalay inaanu ka sameeyno meel center ummadu isku ay aragto bal waxa nimcada aynu haysano caruurta fasaxyada la keeno dadka deegaankan degan la caawiyo oo aad wax loola qabto dhalinyaradeenuna ay ka faa'iideystaan in Soomaaliland ardaydu fasaxyada inay arkaan bal waxa Ilaahay nimcadayna siiyay dhaqankeena ah haduu aqal Soomaaliya haday xoolaheena yihiin haday dhirteena yihiin haday yihiin biyaha socda ee Ilaahay nimcadiisa ah marka halkan degmo center bay noqonaysaa area-dani marka waxaan doonaynaa inaanu eegno bal meesha siday tahay daanakii baaba la yaabnay bal dadka kale dibadaha ka yimaanaya ajnabiga iyo dadka kalena insha Allah way yaabi doonaan kormeerkan ee wasiiradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ay ku timid magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa noqonaya kii ugu horeeyay wasiiraddu ku timaado magaalada Berbera waxaana uu gobolka Saaxil noqday gobolkii ugu horeeyay wasiiradda maaliyadda Soomaaliland ku timaado kormeer tan intii loo magacaabay xilka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Khalid Xasan Kharash telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.